markii la yiraahdo qurba joogta waxaa lagu dhiirigelinaa inay dalka dib ugu soo laabtaan oo dalkoodii maal gashadaan waa fiimka ama mawduuca oo maaragtay runtii shirweynaha loo qabtay waana wax mudan in loo soo wada istaago oo aan soo wada dhaweyno oo aan dowrkooda iyo kaalintooda aan muujino. waxaan rabaa inaan ku daro qayb kale oo ah bointiga la yiraahdo qurba joogtu waa asset. qurba joogtu waa hanti waaye ummadaha ama dowladaha ama bulshooyinka u arka inay yihiin hantina aad iyo aad uga faa'iidaan. marka waxaan ku dari lahay sidii looga faa'iideysan lahaa keliya ma ahane waxaa la rabaa sidii ayaga laftigooda loo maalgashan lahaa. Soomaalidu waa qaxootiyowday, ikhtiyaar kumaysan bixin badankood 90% way dagaagtay. waxaa dagaaga la yiraahday dagaagan waa meesha horta mid bay u carareen. hadda dowladda Soomaaliyeed waxaa la gudboon wasaaradda qorshaheedii siyaasadda qurba joogta way noo keentay, golaha wasiiradana waa la soo marsiiyey. waxaa waaye dowladaha oo runtii dadkooda maal gashada dibadda jira hanti bay u yihiin oo daba taagan oo weliba daba socda oo meesha ay joogaan uga daba taga oo ku xira bulshadooda ku xira oo dhaqankooda ku xira oo dhaqaalahooda ku xira. runtii aad bay uga faa'iidaan wadamo badan oo looga daya karo ayaana jira oo ay dadkoodu hanti u yihiin dibadda ugu maqan. annaga runtii siyaasadda dowladda Soomaaliya dowladihii hore Soomaaliya waxay ahaan jirtay dhul baa naga maqan. aniga waxaan qabaa in lagu bedelo dhulka iyo xuduuduhu waa wax assigned ah dowladaha la siiyey in la yiraahdo dad baa naga maqan in la yiraahdo dadka ka hantida runta ah waa dadka. marka dhul baa naga maqan Soomaalida dhibaato badan ay u keentay, laakiin dadkaaga nationkaaga oo dhiigaaga ah hanti inay yihiin oo meel kastoo looga daba tago oo laga faa'iideysto oo haddii ay bariga dhexe tahay, hadday Afrika tahay, hadday Oroba tahay, hadday America tahay, meel kastoo looga daba tago oo la maalgashado. dowlado badan ayaa ka faa'iiday ilaa haddana ka faa'iida. marka in ayaga la maalgashado wax weyn ayaa ka soo noqda. siyaasadda dowladana insha Allah taala inay ka muuqan doonto ayaa rajaynaa. arrintaas waxaan carabka ugu adkaynaa dalka Soomaaliya damaca dhul ay qabtay oo xuduudaheeda ka tilaabayay dhibaato badan u keenay. laakiin hadday from laga bilaabo 1960 hadday dadkeeda daba taagnaan lahayd oo ayada iskuuladooda iyo waxbarashadooda iyo aqoontooda iyo dhaqaalahooda hadday daba taagnaan lahayd ama deris ha ahaadaan ama ha fogaadaan, hadday dadkooda daba taagnaan lahayd oo ay la daba taagnaan lahayd adeegyadan oo bangiyada la daba taagnaan lahayd oo qunsuliyada la daba taagnaan lahayd oo cultural centers wax la daba taagnaan lahayd oo siyaasaddan dhuldoonka ah keliya oo adduunyadu Soomaalida ku nacday iska dhaafi lahayd oo ay raadin lahayd dad raadsan lahayd dadka ay dooran lahayd ay maal gashan lahayd. waxaan isleeyahay meesha hadda la rabo intii la toosiyo oo la soo celiyo ilaa jidkaas waa la arkay. dowladahan xuduudahooda yacni waxay ku dhawaadeen wax muqadas ah. dowladaha hadda samaysan adduunyada waxay kaga dhawaadeen wax muqadas oo la dhowro oo la yiraahdo dowladii ku xadgudubtaahu
we pay the price. kuwa badan dhibaato kasoo gaartay annagu waa ka midna. waxaa lagu bedeli karaa maadaama mawduucu qurba joog yahay. qurba joogtu dad iska dagaagay oo dhumay kaliya aan loo arkin. loo arko dad runtii hanti ah oo dalka u maqan oo xagga u jira. haddii aad dadka ka hartid laftigooda waxay kuu soo ururinayaan laga yaabaa inay kuu keenaan qashinka meelaha ka jira kaliya kuu keenayaan. oo meel bulsho kasta qashin ay leedahay. bulsho kastaana diamond iyo luul iyo way leedahay. marka waxa wanaagsan inay nooga soo qaadaan waxa qashinka ahna naga soo filtareeyo. waxay u baahan tahay in laga daba tago ayaga oo la daba socdo. dowladaha misalada ugu fiican waxaa ka mid ah dalka Turkiga la yiraahdo. department ma ahan waaxda department waa directorate waaye. waxayna taallaa xafiiska madaxweynaha ayaa la geeyaa waa directorate ka weyn. hadday markay ra'iisul wasaare lahaayeen waxay taallaa xafiiska ra'iisul wasaaraha taale. marka ahamiyadda inta leeg waxaa loo siiyay waxa waaye dadweynahaas iyo ka tagay inaan laga harin oo la daba socdo wanaagoodana la soo qaato. haddii xumaan lagu soo raro karana laga reebo oo meeshooda looga hortago. intaas waxaan rabay pointigaas inaan aad u iftiimiyo. saaxiibada aad iyo aad iyo wada salaama. aad iyo aad u mahadsantihiin. waaxdan oo kobcada oo runtii shaqaysa. waxa alla wixii annaga aad nooga baahan tihiin diyaaradii lanahay. waana mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.